الرحمن الرحيم. مدحوينه علي مهدي محمد، مدحوينه حسن شيخ محمود، مدحوينه أحمد محمد إسلام، مدحوينه عبدي حسن عبد عوالة حسن عبد حسن عوالة قيبديد، مدحوينه علي عبد الله عصبلة، سنة الرضا حلوان نضا قبلها دلنيرada akhyaarta badan ee halka joogta dhamaantiin waa salaamantiin salaanta kadib waxaan rabaa aniga meesha inaan dad badan anigu soo dhaweeyo xamar cidii ku dhalato deganaa dad ku soo dhaweynaysa ninka la soo dhaweynay aniga ma marka aad baan u faraxsanahay runtii xafladan waxaan ka mahad celinayaa akhyaarta soo qaban qaabisay oo madaxweyne cali mahdi maxamed uu u mudan yahay una weyn yahay waxay noo tahay sharaf waxay noo tahay in lagu karaameeyay xilka iyo mas'uuliyadda aan hayno waxaan ka mahad celinaynaa runtii intii soo qaban qaabisay intii soo ajiibtay runtii in sir noocaan oo kale la qabto sida la sheegay isaga fariin ku filan fariintaas annaguna waa qaadnay inta maqanna wayna la arkaa waxay muujinaysaa Soomaali inaysan kala maarmin isu baahan tahay aan tashanno oo yeenu kala tagin saas anagu qaadan annagana intaasaan u nimid dareenka dadku waa isku mid joogay xamar iyo mid maqanba waxaan filayaa dadkan ma aha dadkii looga sheekeyn lahaa maraaxishii la soo maray intoodaba mas'uuliyiintii iyo dadkii xilkaska ahaa oo xaaladaas la soo macaamilayay weliba intii ugu wanaagsanayd ee wanaaga ka talinaysa maanta halka fadhida wixii nagu dhacay nagu wada dhaceen wax tagana tiigsimaad malaaliya shalay ahayd maanta iyo berri ayaa tala nooga baahan talada aan u baahannahay waxa weeye ugu muhiimsan inaan ilaashanno inta aan soo qabsannay oo aan xasiloonida maanta yar ee aan haysanno aan ku soo gaarnay inta aan haysanno inaan ku faraadeegno inta inaga dhimanna aan ka wada tashanno waan hubaa dadaalkaas dadku siyaabo kala duwan inay ugu kala jiraan laakiin waxa cad qof walba meeshiisa hadduu ka qabto si gaar ah inay soo hagaagin in talada la ballaariyo oo talada la badiyo ayaa muhiim ah runtii saad ogtihiin xaalad hadda taagan oo fariimaha badan ee halka laga jeediyey fariinta ugu muhiimsan waa fariinta doorashadu 4 sanaba mar inay dhacdo waa udub dhaxaadka xasiloonida siyaasadeed ee Soomaalidu maanta haysato qof walba oo damiir leh kaasi way gubaysaa xumadda xilliga doorashada dhacdana waa wax iska jira oo dadka waxay u qaybsamaan kuwa doorashada raba in la doorto iyo kuwa saaxiibadood iyo ehelkooda la jecel in la doorto marka waa lagu wada jiraa xumadda doorashada laakiin waxa la rabaa mar walba si miyir qabta oo deganaansho ku jirto oo runtii wixii meeshii la joogo hore uga dhaqaaqaysa in hadba lagu eego waxaad ogtihiin fariimaha halka waxa ka baxay dhuusamareeb in la tago ragga hadda naga maqan awalba wada joogi jireen horta aniga Axmed sabab u ahayd dadka maqoro dhuusamareeb yimid annaga ahayd saaxiibada aad waa maqayn waan u sheegaynaa inta badan runta la isku sheegaa fiican dhuusamareeb koow dadka yimid annaga ahayd laba annaga joognay saddex dadkii gogosha dhigay baan haddaan ka maqannahay horta wili nooma furmin annaga hadda waa furantay dheen laakiin anagu wili waa noo furantahay maxaa yeelay gogol aan anagu wax ka lahayn gogosha wax ku leedahay xataa haddaa maqnaat waa la isla sugaa marka hadday cid laabtay ay jirto annaga ma oginay hadda cidaas la weydiinayo horta laakiin anaga waa noo furantahay
ulajeedadeedana waxa weeye dad Soomaaliyeed in looga tashado waan qabnaa oo marar badan baa siyaabo kala duwan u sheegnay oo Dhuusamareeb 1 iyo 2 ba ay ku soo baxday in doorashada waqtigeeda ku dhacdo in mid la isla ogol yahay dhacdo intaas waa lagu celceliyaa waxaan kaloo qirayaa si aan la isku dhaxyaacin dadka u haysta mandate oo hay'adaha dawladda markaas ama mas'uuliyiinta ka ah ayaa horta talada laga sugayaa dadka badan ee hadda hadlay hadday gacantooda ku jirto annagana lama hadleen waxay la hadlayaan waa dadka mas'uuliyadda markaa jooga marka runtii in si fiican loo maqlo dareenka dadkana waa muhiim intii aan joogay xamar sida la sheegay dad badan baan arkay anoo maqan baana dareenkooda ogaa maxaa yeelay dadka Soomaaliyeed ama hal wada jooga ama la maqnaade waa isku dareenka laga walwalayo waxa weeye war meeshaan joognayaan dib uga dhicin ee aan hore u socon talo walaalnimo lagu wada socon karaa dadka markaa xilka haya kuma ceebeysna in ay xilka mar labaad doonaan inay ka shaqeeyaan si ay isleeyihiin waad ku guuleysan kartaana kuma ceebeysna laakiin waxaan rabaa processka loo marayo inuu noqdo equal opportunity ila adiga kaliya ma cid tartamaysa hadaba cid kale aad u baahnayn inaad tartantid u baahnid oo doorasho qabatid haddaad ba ogtahay in doorashada inaad rabtid inaad qabatid waxa laga rabaa processka inuu ka khaldabin oo processka uu sax ku socdo qof kastana markaas uu fursadiisa halka ka helo adigu waaba kaga sii farwacan tahay oo wax laga yaabaa in kastoo doorashooyinka loo ogoleen qofka xilka hayo laakiin hadda Soomaali baa noo wali heerkaas laba gaarin imkaaniyaad badan oo dawladnimo inaa wali dul fadhid marka waxaan rajaynayaa sunnada soo socotay oo quruxda badnayd oo madaxda halka qayb joogta qaybna maqan tahay hadii madaxda isbedeshay bar walba waxa lagu celceliyaa inta hadda noole cali mahdi iyo maxaa la yiraahdaa xasan sheekh iyo shariife hadda kaligiin ma hadii qaybdiida halka kamid oo cusubla kamid oo madaxda gobolada ruuxadooda in la isbedbedelo waa taqaana oo hadda madaxdii hore Puntland kaligeed ma dadka isbedbedelo dadku waa ogol yihiin in la isdoorto oo la isbedelo ceebna ma aha marka aan waxay la tahay Soomaalida waxa la raadinayo waxa saldhig u ah oo in la helaa deganaansho iyo nabadgelyada hadda jirta inaysan dib u dhicin waxa la rabaa in lagu gaaro wadar ogol iyo isku taraasub afartaas oo labana ay tahay labada asaaska labana ay tahay wadada loo maray hadii la isla fahmo waxa kale oo xumaanay way yaraanayaan hadii ilaahay laakiin dadkan dad isir kara ma aha dadku hadda inda yar muufsidnay fuul baa wada shidan dadku meel walba waa arkaan marka nin indhihiisu waa weeyeen meel aad ka laabanaysid ma leh waxaan aad uga mahad celinayaa runtii gogoshaan dadka dhigay deegaanka Muqdisho waa sida la sheegay Muqdisho waa magaalo madaxdeena waa hooyadii ummadda Soomaaliyeed ay deganayd waa meeshii cid walba kan deganayna uu soo haqaltaagi jiro markay dani ka gasho uu imaan jiray way haddana waa sidii oo dabeecadaas ma aysan bedelin dadka degan oo u badan si hadda loo kala badan yahay garan maayee laakiin haddana muddadii la joogay oo hadda dawladdu ay ka dhisnayd waa muuqataa in deganaanshuhu iyo sabirka aad sheegteen waa ficil xaqiiqi oo jira laakiin waa sabarna kaliya lagama rabo waxaan laga rabaa hoggaanka dalka tiina ina wax ka qumisaan oo hagaajisaan xamar sida uu ekaanayso maanta kaliya farbaajo lagu haystay hadda waa joogi jirteen ruuxadiin waxa la rabaa xamar ina hoggaankeeda la qabto wixii ka khaldan laga saxo oo ay noqoto meeshii wax laga bilaabay asalka ahayd waxna waa sharciga iyo maqaamkeeda waxna waa muuqaalkeeda iyo nolosheeda hadda xataa marka laga tago maqaamkeeda iyo sida noqonaysa ay la dooranaysa marka laga tago xamar sida hadda ay u ogtahay si lagu raalaan karo ma amaan ma jiro nadaafad ma jirto meel walba waa la dhistay hadda caasimad Soomaaliyeed ku noqoto naftirkeeda in laga shaqeeyo u baahan tahay
aniga magaalada waa jeclo waa ku dhashay abil waxa uu dirayaa dadka hadda jooga hadda aanay madagini magaalada xamar waa la xumeeyaan maqli jiray xamar xumaynta laga dhaaf oo sida hadda ku sugan tahay wax laga bedelo annagoo dhan diyaaraan u nahay maxaa yeelay qalbigeena iyo qulubteena la jirta xamar wanaageeda rabnaa xamar oo xumaata waa dawladda Soomaaliyeed oo xun waa muraayadii dalka waa caasimadii dalka maqaam kasta iyo sharaf kasta oo ugu mudan tahay inay Soomaaliyeed kala siisay munaasab u tahay waxa intaas dadka Soomaaliyeed laga kiri laayahay war dawladnimada marka la dhisayo waxa saldhig u ah is ogolaansho siyaasadeed talaabada u xigta wax weeye sharci lagu qotamiyo waxaan sharci lahayn hadhow waa murankeedu badanaya waxaan qabaa hadda anigu ma qabo waxyaabo sharci ah iyo waxaas inaan ka hadalno hadda xaalad adag baan maraynaaye horta awoodeena aan soo geeyno dalka sida doorasho u galeyd taas saldhig ah laakiin waxaan ka rabnaa hadhow yaan la cabaadin dawladda soo socota ay timaado waxa la rabaa wixii ay qaban lahayd hadda la isla garto oo aysan isla dhaafin oo sanadka ugu dambeeya aan la cabaadin waxaan u baahanahay mar walba sanadka ugu dambeeya la yiraahdaa see isu dooranayna waxaan hadalkay ku soo gaabinayaa gogasha noocaana in aad loo badiyo arrimaha siyaasadda waayadan dambe Soomaalidu waxa la yiraahdaa habeenkii bay ka shaqeysaa hadda ka bacdi waxaan rabnaa siyaasadda maalintii laga shaqeeyo xalaal maxaa loo oran jiray daraar baa la qashaa Soomaa bahashan hadde mugdiga ah horta naga dhaaf haddii mugdi lagu jiro dadka shacabka victim noqonaya in yaro habeenkii wax qaybsata waa ogahay haddii habeenkii la iska dhaafo dad badan shaqo weyn doona dhagdheer iyo dhagay shaqo laakiin kuwa kale badan shaqo ilaahay dib male marka shaqada maalintii laga dhigo dadku saraaxaha u wada hadlo waa la kala garbaxaya haddii ilaahay ka dhigo marka taasna waa kaftanku maanta waa furan yahay maxaa yeelay gogol aan kaftan lahayn walaalnimo ka muuqata la yiri marka in la kaftaba loo baahan yahay fariimihiina si fiican bay noo galeen laakiin ficilkeeda in asal qabanaa rabna waa mahadsantiin